qaraxani waa minada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala egtay kolonyo gaadiida oo ay siteen ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka amisan ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay xaafadda Fiaf Madow ee galbeedka magaalada Kismaayo. qaraxani waa mid aad u xoogan ayaa waxa ku basbeelay mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee ciidamada Kenya, inkastoo aan la saadaalin karin khasaaraha ka dhashay burburka gaarigaasi. waxaana wax yar kadib goobta uu ka dhacay qaraxa hariyay ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo howlgalla baaritaana ka bilaabay xaafadaha ku dhow goobta uu ka dhacay qaraxa. baada warbaahinta uu gaaray goobta uu ka dhacay qaraxa ayaa waxaan kula kulanay gaashaanle sare Maxamed Buule Ibrahim oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee howlgalka baaritaanka ka waday xaafadda Fiaf Madow, isagoona ka warbixiyay qaabka uu dhacay qaraxa iyo howlgalka ay wadaan. cidna Ilaahay wuxuu kuma yeelin, bilaad wuxuu kuma noqon, ciidamo kuma noqon, shacab kuma noqon, bilaad kale wuxuu kuma noqon ninka cadowga kulliyaal oo halka xabada galiyay oo baasha galiyay ay dhibaatadaas kulli waxay wada la Ilaahayna dadku ka badbaadiyay. haddana waa dabagaleynaa kulli magacyadooda qayb baan haynaa, waana gudbin doonaa, waana qaban doonaa insha Allah saacadaha soo socda jawaab baan ka bixin doonaa. amniga ku sugo ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee aagga galbeedka Kismaayo ku sugan iyo ciidamada amisan oo howlgal wada fulinaya ayaa qaraxaasi lagu sameeyay. wax dhibaatana laguma dhicin, waana qaban doonaa saacadaha soo socda. kulli dad aan tuhmayno way wax meel dheer ka yimid maaha. hadal weli hadda anagu ma rabno dadka shacabka masaakiinta inaan dhibaatayno, qof aan waxba lagu ogaan iska qabano, wax yaqiin ayaan qabanaa. yaqiintana waa qaban doonaa, waana daba taaganahay. ilaahay hadda aagga sida arkaysaa waa magaalada waa degan tahay, wax culays ma jiro, shacabka wax dhibaatay muxuu ahay laguma samaynayo. wax yaqiin aan qaban doonaa, ma maagi doono dadkan waxba uma dhimi doono, wax cadan qaban doonaa gacanta ku dhigana hadduu ilaahay yiraahdo. Cabdimaad Bashiir Maxamed Bashka, Kalsan TV, magaalada Kismaayo.